Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shalay waxaan hosbitaalka ku booqanay gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Nafiso in muddo ahna ku jirtay hosbitaal private ah oo ku yaala magaalada Cape Town. Gabadhaas toddobaadkii 3 jeer ayaa keliyaheeda lagu dhaqaa hosbitaalkaas, qarashka ku baxayna aad ayuu u fara badan yahay, iyada iyo weliba qoyskeeda ma ahan wax ay awoodaan. Haddaba markii aan u tagnay ummadda islaamka ah, gaar ahaan Soomaalida, waxa ay ka codsatay in ay ku caawiyaan wixii ay ku garab istaagi karaan, haddii ay ahaan lahayd inay kala qayb qaataan dhaqidda keliyaha oo toddobaadkiiba 3 jeer hosbitaalkaas loogu dhaqo, iyo weliba haddii ay u iibin lahaayeen kili ay nolosheeda kusii wadato. haddaba waxaa hadalkeeda ka mid ahaa: bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waa Nafiso Maxamed Xudhuun. Waxaan ku noolahay dalka South Africa. ilaa ay muddo imika waxaa layga dhaqayaa keliyaha ilaa 6 bilood. Marka alxamdulillaah waxaa igu dhacay sokor anigoo yar iyo dhiikar. Marka sokorta dhibku ma qaban, dhiikara mar dhaweed igu dhacay, taasaa keliyaha igu dhuftay. Marka isbuucii 3 times lay dhaqaa alxamdulillaah. Marka waxaan codsanayaa dadweynaha Soomaaliyeed, muslimiinta meel walba ay joogaan, keliyaha dhaqitaanka in layga caawiyo because ma awoodo. isbuucii 3 mar layga dhaqaa, waa $300. South Africa qaxootiga waxba uma qabtaan dhaqitaan iyo shaqo kuma laha, waa ina qarashkaaga aad bixisaa. Waxaan ku jiraa private hospital. Isbitaalada horta waa lacag la'aan xagga daweynta xanuunada qaarkooda, laakiin wax keli dhaqitaan la dhahayo kuma jiraan. Kelida haddaad dhaqitaan aad rabto inaad South African aad ahaataa, aad haysataa dhalashada South Africaanka, markaas wax ku qabanayaan. Waxay igu yiraahdeen haddaad keli hesho waxaa laga yaabaa normalka inaad ku soo noqoto. Marka waxaan jeclaan lahaa in keli la ii gado, haddaad ii awoodaan adigu tabarucdaan. Dhaqitaanka mar walba dhaqitaan forever lama taagnaan karo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan dadka Soomaalida barnaamijka Radio Boorama ka dhagaysanaya kana daawanaya Somali Canadian TV. Walaalayaal, dadka muslimiinta dhibtu waxay tahay inay isla qaybsadaan. siduu Nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiiskii macruufka ah saxiixay noo wada sheegay oo uu yiri: masal almu'miniina fi tawaadihim, dadka muslimiinta isku dhibrintooda, isku naxariistooda, isku damqashadooda wuxuu Nabigu ku matalay jir qura. jirkaasoo xubin ka mid ihi hadday xanuunto, jirka habeenkaasoo dhan laxawga iyo qandhada iyo xanuunka uu jirka kale intiisa kale yahay muslimiintu dhammaanteed isku yihiin. haddaba walaalayaal, maalin maalmaha ka mid isagoo masaajidka Madiina joogaba asxaabtu waxaa Nabiga u yimid dad yaabto dhibta iyo diifta ka muuqata dharka ay xidhan yihiin, siday u eg yihiin. rasuulkii uu ka naxay, markaasaa wejigiisii madoobaaday. waxa uu akhriyay aayadan qur-aanka ah. حديث كان ولا يروح وري جرير بن عبد الله البجلي: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلا أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. وروح لبح ويركع العلي ولا الذي محلبح وإله الدرتي وحقب بحية وعاوية. أنت أنا لمسدوا إيماننا، يعني كنت تمنين إله الدبي يقول لك أنا وحسد قيست والعمل وناكسن لي مادي. walaalayaal, arrintaa iyada ah asxaabtii nin walba wuu orday, gurigiisuu tagay. nin walba wuxuu haystay uu soo qaaday. mid baa biyo keenay, mid baa timir keenay, mid baa haruur keenay, mid baa heed keenay, mid baa arabakhi keenay. kaanamaa buuro kale bay noqotay. nebiga sallallahu calayhi wasallam wejigiisii baa cadaaday. marka nebigu wuxuu yihi: man sallaa sunnatu xasana, qofka sunno wanaagsan jideeya saasoo kale. walaalayaal, gabadhan walaasheena aynu u damqano, isku naxariisano, aynu caawino. dhammaan dadka i dhegaysanaya وأنا حامد على العلمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.